qofka saa'ilka afraad wuxuuna soo weydiiyey oo su-aashiisu ay ahayd wuxuu leeyahay waxaan ahay qof Sweden joogaan ahay macallin quraan baan ahay dadka quraan baan baraa lacag kuma shardiyo shardi ogama dhigo dadka qaarna waxba ay siiyaan qaarna waxba ima siiyaan quraanka aan barayo lacag inay iska bixiyaan shardi ma uga dhigi karaa jawaabtu waa haa inna xaqa ma akhadtum calayhi ajran kitaabullaahi banaanaansha hadday tahay qofka shardi wuu ka dhigi karaa qofku duruuf buu leeyahay dan iyo waajibaad baa saaran waajibaadkii saaran iyo nafaqaadkii iyo xuquuqdii laga rabay inuu shaqo tago u baahanayaa hadduu hawlihii uga nagaado dadkuna ay u baahan yihiin qur-aankii in la baraay beddelkii baahidiisii uu ka qaadan karaa waana wanaagsan tahay qofku haddii ilaahay dartii uu ku baro san waxba ka qaadanin oo iska maarmi karana inuu khilaafkaba ka baxo oo iska daayo ayaa ka qiimiya fadli badan ajir badan laakiin asal ahaan way bannaan tahay maadaama tacliimtii ajra in lagu qaato way bannaan tahay oo ina xaqa ma akhadtum calayhi ajran kitaabullahi wayd qof xanuunsan oo lagu akhriyey buu xadiidku ku yimid xadiidka abi saciid alkhudri radi allahu canhu ardaah qof hal mar lagu akhriyay oo ku caafimaaday hadduu ku yimid qofka inta la baray intuu nool yahay ku intifaacaya ee akhrisanaya ee aakhare ajir kaga helaya adduunkiina cibaadaad ku gudanayahay kaasaaba ka intifaac badan waxa loo taraya intifaaciisaa ka badan wakhtiga barista ku baxayaana ka badan wakhtiga ruqyada iyo ku akhrisa ku baxaya haddaba min baabi tanbiihi bil adnaa cala alaclaa waay kii fududaa ajraa lagu qaadan karaa haddii la yidhi kii ka sii hawliya dhib badnaa ka siina manaafacaad badnaa isna in lagu qaadan karo ayaa halkaa laga garanayaa